magacaygu waa Cabdilaahi Salebaan. Hore waxaan usoo gudbiyey 5 project oo Photoshop ah. Iminkana waxaan soo gudbinayaa 4 project oo Illustrator ah iyo 1 project oo InDesign ah. Haddii aan isku horeyno saas waxay horta ku noqonayaan 10 project oo dhameystiran oo markaas laga rabay diplomada graphic design-ka. Haddii aan project-yada Illustrator-ka isla furno 4 project ay ka kooban yihiin oo ah road symbols-ka, social media cover, business project iyo logos. waan isku tagi doonaa mid kasta oo dul saagi doonaa. Road symbols-ka haddii aan furno waa calaamadaha ama signs-ka la dhigo wadooyinka oo markaasi waxun tilmaamaya sida stop sign-ka, speed limit-ka, no entry-ga, no parking sign-ka iyo sidoo kale traffic lights-ka. Stop sign-ka haddaan furno qaabkan ayay u shaqaysan tahay. Haddii aynu furno markaasi Illustrator ahaan haddii aynu ku furno qaabkan ayay ku soo baxaysaa oo layerkan haddii aan sii furno saas ay scope hoos imaanayaan. haddii aynu design-ka xiga u gudubno speed limit-ku qaabkan ayuu u shaqaysan yahay oo 40 km/h inuu qofku ku socdo lama ogola wixii markaas ka sareeya oo ku hooseysiinaya 40ka. marka qaabkan ayuu Illustrator ahaan u shaqaysan yahay, qaabkaas ay scope imaanayaan layeradu. no entry-guna qaabkan ayuu isna u shaqaysan yahay oo aan soo diyaariyay oo qofka meelaha qaar darawalku calaamadan haddii uu arko waa inuu ka istaagaa oo meeshaas uusan gelin. marka kuwan horena waa iska laabaynaa. marka no entry dunad intergusan ayay markaas u shaqaysan tahay oo aan soo diyaariyay. waxaan ku xusinaynaa parking-ka no parking-ka. tan waxaa laga yaabaa inaad meelo badan aad ku aragtay sida goobaha ganacsiga iyo goobaha hospitaalada iyo meelahaas oo dhan baa la dhigaa meeshii markaas aan laga ogolayn in baabuurta lagu parking garaysto. marka labadan ayaan markaasi ka diyaariyay no parking-ka baabuurtaas. traffic lights-ka haddii aynu gudubno traffic lights-ku qaabkan ayay u diyaarsan yihiin oo calaamadan cagaarka waa midda qofku uu ku soconayo qofka darawalka la rabo inuu eegto ama qofka wadada ka gudbayaba markii ay tani baxdo waa qofku soconaya. tan waa waqtiga dheeriga loogu daray, tanna waa marka haddii ay soconayso tan oo kala qofka darawalka uu ka istaagaya. project-kii koowaad intaas ayuu ku saabsan yahay. haddii aan kalabaad furno oo ah social media cover-ka waa sawirada dambe ee xagga dambe la saarto sida Facebook-ka, Instagram-ka, WhatsApp-ka iyo wixii la mid ah. marka hadda warbid baan usoo horeysiiyay website-ka warbid cover-kiisa oo aan u diyaariyay wiilkan Cabdiladiif Cabdisamed ayaan soo shaqeynay weeyaan oo aad u dadaal badan. haddii aan ka nimaadno oo aan talabaad u nimaadno tan anaa diyaarsaday oo waa WhatsApp weeyaan. PSD-giisana waan soo furaynaa. PSD-giisana qaabkan. marka design-kan haddii aad aragto aysan kaliya quruxiisa ku cajabin balse waxaan hawla ayaa loo maray. waxaasoo dhan ayaa markaas resource-kan keenay oo layiraahdo ayaa lagu dhisay. Instagram ayaan gudbinaa. Instagram-kuna cover-kan ayaan u diyaariyay qurux badan oo ah isla cadadii oo soo laabtay. marka qaabkaas ayuu Illustrator ahaan ugu shaqaysan yahay. marka gudbinaa waxaan u gudbinaa Facebook-ka waa Facebook page weeyaan kani. Facebook page buu qofku saaranayaa. marka haddii page-kaasi uu yahay page waxyaabo qosol la soo dhigo iyo wixii markaas la halmaala waa loo isticmaali karayaa sawirkan cover ahaan baa looga dhigi karayaa. marka faylashanna waa kuwii lagu dhisay design-kaas. marka design-kana waan ku furi karnaa oo waxba naguma hayo in Illustrator ku furno. Illustrator-na sana ayuu diyaariyay. marka tani waa loogadii weeyaan. marka waa iska laabaynaa. project-gaasna intaas ayuu ku kooban yahay. project-gan saddexaad baan u teganaa oo ah business projects. waxaa ugu horeeya travel agency oo shirkadda travel agency ayaa loogu talagalay oo flying iyo waxaas qaabilsan. marka qaybta hore gidaarka ayay ku dhisanaysaa intay kan soo daabacato si loo garto in meeshan ay tahay shirkad flying iyo waxaas qaabilsan. kan waa image-kii haddaynu PSD ahaan muxuu ahaa haddii Illustrator ahaan ku furno qaabkan ayuu kusoo baxaya. Alnur Printing Company waa design-ka labaad markaas aan ugu talagalay shirkadka printing-ka iyo waxaas qaabilsan buugaagta iyo waxyaalaha markaas la mid ah waraaqaha iyo wixii kale soo raacaba. qaabkaas ayay iyaduna ay u diyaarsan tahay Alnur Printing Company. loogadii iyo wixii oo dhan ayaa xitaa u diyaariyay. kanna waxa weeyaan waa design-kii oo aan Illustrator markaasi aan ku diyaariyay. intaasoo markaasi layer ay ka kooban yihiin waa wax hawl badan runtii laga maray.
si markaas designka loo soo saaro. Kana waxa weeyaan waa barber shop ama timo jare saan hadda u naqaano. Marka xilliga uu furan yahay sawirada iyo qoraalada qaabkaas ayaan markaasi aan u keensaday. Marka sawiradan iyo waxna wixii lagu soo saaray designkaas ilaa afartiisa iyo wixiisa oo dhan ayaa la socda. Kana waxa weeyaan waa restaurant ayaa lagu talagalay. Waa restaurant-ga haddii aan furno goob restaurant ayaa kala dhisin karaa oo saa markaasi vertical ah taagtaaga. Marka qaabkaas ayaan isna u diyaariyay. Waan iskala noqonaynaa waxaan markaasi furaynaa waxaan ku furaynaa Illustrator ahaan Adobe Illustrator ayaan ku furaynaa. Adobe Illustrator san ayaan u diyaariyay. Iska wada xirnaa labadan markaas space aynu helno. Waa iska dhownahay waxa ugu dambeeya project-gan oo ah logoska. Waa 4 logo oo kala duwan oo aan u diyaariyay school media mid markaasi diiniya iyo midkaas e-learning ah iyo mid jaamacad aan u diyaariyay. Waa 4 logo weeyaan. Marka koowaad haddaynu furno waa Howd Science School. Howd waa school aan ka soo baxay oo ilaa dugsiga sare oo dhan soo dhiganayay Howd la dhahaa. Aniga laftigayga wiil reer Howd baan ahay. Barasho wanaagsan. Public school waa iyadii oo markaasi Illustrator ahaan oo qaabkan aan u diyaariyay quruxda badan. Ogowna logadan meelaha qaar lacag bay ka joogtaa haddaad kanfa iyo tagto meelaha free pick ee logooyinka lagu gado waas kala lacag ayaa markaas laga qaaday inaad bixiso si aad wax uga bedelto aad markaasi permission-keeda ama ogolaanshaheeda aad u hesho. Kana waxaan u diyaariyay madrasada Furqaan Islaamiya School Furqaana markaasi magaalada aan ka soo jeedo ku yaala ayaan logadaas u diyaariyay. Kana waa e-learning oo waa Simple Learn tan waa isla garanaa Simple Learn waa markaasi e-learning-yada jira weeyaan oo online wax laga barto iyadana logadaas ayaan diyaariyay. Tana waa jaamacad way isticmaali karaysaa. Marka Hurbad ayaan iska qortay Hurbad International University xilliga la aasaasay oo 2000 qaabkaas ayaan diyaariyay. Waan ku furanaa Adobe Illustrator qaabkan aad u jeedaan ay isku siimaanaya la yiraahdo. Waan ka soo gudbanaa logooyinku intaas ay ku saabsan yihiin. Sidoo kale waxaan saa ku soo gabagabeynay Illustrator-ka 4TC project oo aan mid kasta goonidiisa nii tusay iyo designada hoos imaanaya waa halkii project-ga u dambeeyay oo ah InDesign. InDesign-ka haddii aan markaasi furno InDesign-ku buuggan quruxda badan baan ka soo diyaariyay oo ah Conquer Your Tasks si markaasi aad ugu guuleysan lahayd shaqooyinkaaga. Markaasi Proven Strategies strategiyo aad markaasi kaga adkaan karto oo ku qaraaci karto procrastination. Marka intaas baan kaga hadlayay. Marka buuggan kaliya designka iyo qaabkan u diyaariyo muhiim ah balse waxaan buuggan ka soo qaatay waa Idad Frog inaad akhrido waan maleynayaa. Buuggaas ayuu runtii ku saabsan yahay oo aan qaab kale u dhigo weeyaan. Marka waa 13 page buu ka kooban yahay. 13ka page waxaan sameynaynaa linkiga ugu dambeeya markuu qofku soo akhriyo linkiga ugu dambeeya ayuu qofku ku dhufanayaa. Marka buuggii oo dhammaystiran buu helayaa. Waxa la geynayaa Amazon baa qofka la geynayaa. Buugga haddii u baahan yahay Idad Frog qofku bartan buu aad kaarta ayaa bartan ka iibsanaya. Marka project-yadan maanta intaas ayuu ka kooban yihiin. Sidoo kale waan ku furi karaynaa Adobe InDesign waan ku furi karnaa. Iyada laftigeedu waa dhibaato ma laha application component in furnayn balse buuggaas sida loogu diyaariyo InDesign layerada farta iyo waxa oo dhan insha Allah maslaarkana marka uu noo soo kaco. iska suganaan yar inta uu soo kacayo. Marka qaabkan ayuu diyaarsan yahay kuwan layeradii weeyaan oo page 1 page 3 waa graphics-kii wixii oo dhan qaabkan uu diyaariyay weeyaan. Marka saan ayaan u soo diyaariyay oo hawshaas ayaan ka soo maray. Marka kaliya inaad arag buuggii oo bartan lagu furay. Marka project-gaygan intaas ayuu ku saabsan yahay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.